xilli maanta codka kalsoonida baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay kala laabteen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo golihiisa wasiirada ayaa go'aankaasi waxaa si aad ah u soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxaa soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweynuhu waxa uu muhiimad u arkaa midnimada hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan marxaladaha aan ku jirno balse isaga oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah tixgelinaya awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka waxa uu aqbalay go'aanka golaha shacabka. qoraalka waxaa kaloo lagu yiri kala fogaanshiyaha xukuumadda iyo hay'adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarka la sameeyay si taasi loo daba qabtaana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaasiga u ah qarannimadeena. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxa uu si degdeg ah u soo magacaabaya ra'iisul wasaare soo dhisi doona xukuumad dalkan ka saarta marxaladaha kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulshada ee dalka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre howlkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneed oo uu la lahaa hay'adaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isagoo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan. dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa u igmaday in howlaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu sii shir gudoomiyo isla markaana uu ku siman ra'iisul wasaare ka noqdo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. war ka soo baxay isla Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa wareegtay madaxweyne ugu igmaday Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya si socodsiinta iyo maareynta howlaha golaha xukuumadda si ku meel gaar ah. wareegtada madaxweynaha ayaa ku saleysneed in aanu hakad gelin qorshayaasha dowladda dhiska iyo horumarinta dalkeena tan iyo inta madaxweynaha uu ka soo magacaabayo ra'iisul wasaare soo dhisaya xukuumad tayo leh oo sii dardargelin doonta xaqiijinta yadadiilada shacabka Soomaaliyeed. laga bilaabo faafinta sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah waxa uu ku simaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar awood u yeelanaya hagida howlaha xukuumadda inta laga soo buuxinayo xilka wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa adkeeyay in dalka ay ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo lagu wada qanacsan yahay waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka iyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay ka shaqeyso qodobadii ku soo baxay war murtiyeedkii Dhuusamareeb iyada oo shirka xiga loo balansan yahay 15 bisha soo socota ee Agoosto. يوسف محمد أحمد قلمودك TV مقدشو.